السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي ذا وأنيقو أهمها مقصد وحان شرح دونا حكمتي كويتو منات لقيسوا مد أكسونو دنيا أودان وحي كسعتا رجوين قف ولبا رجو أيوكنو ليحي مستقبلك waxaa iska leh kuwa garanaya sida wax loo sugo go'aanka saxda ah waa marka qalbigaaga iyo maskaxdaadu ay labaduba u qancaan haddaad rabto inaad nolosha kugu dhoola cadayso marka hore niyadaada wanaagsanaan sii furaha guusha ixtiraam macallimiintaada si wanaagsan oo la dhaqan waxbarashadaada si wanaagsan u wado marnaba ha ka go'in waalidkaaga inaad u ducayso haddii dadku wax kaa sheegaan waa inaadan murugoon waa inaad ahaato qof go'aan leh haddii ay waqtigooda ugu faa'iidaystaan ka hadalkaaga kuma qasbi kartid dadka inay sii joogaan noloshaada joogitaanku waa xulasho marka u mahadnaq dadka ku doortay adiga haddaad dadka ula dhaqanno si ikhtiyaar ah marka weligaa jawaab sax ma heli doontid dadka kale waxbaha ka sugin weligaa ma hungoobi doontid dadka doonaya inay ku noolaadaan noloshaada had iyo jeer waxay heli doonaan dariiq ay adiga ku soo maraan mar waliba isku day inaad naftaadu kaliya aad ku kalsoonaato iyo Allah subxaanahu wa tacaala mar waliba isku day inaad waalidkaaga u duceyso mar waliba isku day inaad waalidkaaga aadan ilaabin ogow wax walba oo la qabto waxaa ka dambeeya waa waalid adigoona waalid ku duceyn heer gaari maysid waxaad ogaataa mar waliba wax sida yihiin haddaad uga tagto waxaad imaanaysaa asigoo si kala ah taa micnaheedu waxay tahay wax walba inay isbeddelayaan mar waliba isku day go'aanka aad qaadanayso inuu adiga oo keliya kugu koobnaado ogow waxaa jira dad aan horumarkaaga jecleen waxaa jira dad araggaaga dhibayo balse dadkaas dhan indhaha u dhigin adiga mar weliba hortaada fiiri mar weliba noqo qof hortiisa u socda marnaba ha u murugoyna qof kaa tagaya ama kaa tagay ama hadda kaa socda mar walba isku day naftaadu kaliya inaad amin aad ku qabtay Allah subxaanahu wa tacaala iyo waalidiintaada noloshu waa imtixaanka ugu adag dad badan ayaa ku guuldarastay maxaa yeelay waxay isku dayeen inay dadka kala koobiyeyaan iyagoo aan ogeyn in qof weliba uu leeyahay warqad su'aal ka duwan sideetan imtixaanku wuxuu had iyo jeer ku salaysan yahay waa hal muxaadaro oo ka baaqatay iyo hal mawduuc oo aadan diyaarin weli isdeji mar weliba oo wax u baro imtixaanaadka 9 warqadda imtixaanka mar weliba waxay ku salaysan tahay hal muxaadaro oo aad ku dhaaftay fasalka iyo hal mawduuc oo aad iskeeda tirtay imtixaanada sida kaliya ee wax lagu ogaan karo ugu yaraan waa maalmo yar marnaba ha seexan habeenka oo dhan wax badan
maxaa yeelay waad ku seexan doontaa imtixaanka. weliga ha oggolaani qofna inuu ugu soo dhowaado qalbigaaga oo ay xanuun badan tahay inaad iska ilowdo qofkaas.